wuxuu ku faanayaa dembigii uu sameeyey ayuu dadka u sheegayaa oo ku faanayaa qofka noocaas ah oo gaaray ilaahay intuu asturay inuu asagu iska qaado daahi ilaahay saaray oo macaasidii xala uu sameeyey bannaanka soo dhigo ama ha ahaata khiyaano ummad uu khiyaanayay ama ha ahaata dil uu dilahayay ama ha ahaata xatooye uu xadahayay ama ha ahaato rishwo iyo laaluush iyo ribo iyo balaayo uu qaadanayay xalay waagu markuu u bariyo ama zina uu ku dhacay hadduu yidhaahdo saaxiibbadiisu uu ku yidhaahdo sidaa iyo sidaa baan sameeyey qofkaasi wuxuu gaaray martabo khatar ah oo aad iyo aad khatar u ah ayuu gaaray ilaahayna kuwa uu cafinahayo nebigu wuxuu sal ly slam kuma jiro haddii iimaanku uu daciifo qalbiga qalala qofka haddii qalbi qalal uu ku dhacana waxa weeyaan wuxuu noqonayaa qalbigiisu qalbiga ilaahay quluubta ugu necab yahay naartana wax kale looma abuurin ilaa qalbiyada qalalay inay dhalaalisa mooyaan wax kale looma abuurin ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة إلهي بايد سبحانه وتعالى قلبي وهدو أنججه وأكون مات هلاك أيات دبتها أنتهي أو قرك أصارنت وحاكم إذا إيمانك هدو ضعيفه مصيبوين كقفك وكل ليه عدم إتقان العبادات صلاة وتكنا يمسوها هيو صدقة وبحنا يمسوها هيو خيرك وصمينا يمتقانك رمسوك محايا لوحة ويا إيمانك يسيبها ضعيفة قلبك يسيبها مقية وحكم إذا التكاسل عن الطاعات طاعاتك إلهي أيكوه السنية صلاتي واكو علوستهي صدقتي واكو علوستهي صونكي واكو علوسيهي صلاتي يحريرينتي قرابض واكو علوستهي علويسك وحا كان يضعف الإيمان أيات تابتي maxaa keena iimaanku inuu daciifo waxaa keenta alghaflatu can illaah can dikri illaah qofku ilaahay inuu iloobo oo ilaahay dikrigiisa iyo xuskiisa iyo xasuusta ilaahay qalbigiisa ay ka maran tahay markuu wax dhaxal markuu mataqaanaa mucaamaloonayo markuu wax beec galahayo markuu siyaasad ku jiro markuu saaxiibada ku dhex joogo markuu gurigiisa joogo waxa ku wareegsan oo dhan marka la fiiriyo wuxuu kaga sugan yahay xasuusta ilaahay qaflad waxa keena qofku inuu ka fogaado cilmiga iyo wacdiga iyo waanada meelaha lagu hayo oo sharciga ah qofku haduunan ku yeelan nasiib masaajidda uu soo xaadiro kutubaha iyo cilmiga uu dhageysto wacdiga culimada uu ku xiran yahay saaxiibada wanaagsan uu la saaxiibo haduunan nasiib ku yeelan qofkaasi waxa weeyaan wuxuu hayaa wadada qalbigiisa iimaankiisa uu ku daciifayo wadeeda ayuu hayaa waxa kamida al-ighraaq wal-inshighal bid-dunya cudurka nagu dhacay oo ah adduunyada oo lagu qarqoomo oo la dabaasho oo qofku uusan iska ilaalin ee intuu awoodiisa iyo juhdigiisa oo dhan uu geliyo oo hamigiisa iyo murugtiisaba ay noqoto oo habeen iyo maalin shilin u gee xagee ka ziyaadisaa xagee ka dhamaystirtaa habeen iyo maalin hamigiisa uu yahay ilaahay wuxuu yiri alhaakum at-takathur hatta zurtumul maqabir waxa idin mashquuliyay wax kala badsi iyo isku gufaan iyo tartan إلى قبورها كبوقتين وكدمتها وأدويدي النبي عليه الصلاة والسلام إن بدن أمدي سكلها طلي وأوير لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء هذي إلهي أكتي سأي قرب كان يعكد لما الله قال كوبيا كما عبين لكن قال كوحو أقعب يا أقشق يسانيا إلهي أكتي سيسان قيمة كأهين قيمة قال يا قرب كان يعق مدام وأدويدي النبي يري صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا أنا يا الدنيا محاسك كايا قالي ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها أنا الدنيا الدحدة كمئه
إلا قف وحويان قاديد سارا أو صعطاء أو مسافرا موياني جيد هوستيس كن نستي كبعدين كررتي أو كدقاقي نبي محمد عليه الصلاة والسلام إلهي ونصد دري أو رحمة للعالمين أها الدنيا وحن كوها يبويري قف صعطاء أو انتو حوغات دالي رجيت كان هوستيس كن نصو وحكى لو أنا حوغا إنو نصتو عندي سيرتا كوكر صدق بعد وكدقاقه ساسا الدنيا ده أنا وكوها يبيدح والدنيا دي النبي يقول عليه الصلاة والسلام كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل وحا الدنيا ده كوها تاغف غريبة وأن لقب أقون أما قف مسافر وشد قوينة هيو صعطاء كوها والدنيا دي النبي يقول عليه الصلاة والسلام إن مطعم ابن آدم جعل مثلا للدنيا وإن مزحه ولحه فانظروا إلى ما يصير الدنيا دا تصالح وحلوغة دقي قفك بني آدم كعنضاء عناهي أي الدنيا دا لقوا مثاليي أو لقوا شبهي بالنبي سكستا هدو أقو تفنونا بالنبي أو سكستا معانيو أو نوعيا دا أقفي عن فرسمدو دا أو يقانه أو عنضاء نوع أقفي عن أو عناه فانظروا إلى ما يصير وحاط في لسان cunadaas macaanka badan oo kala duwan oo aad cunteen meesha ay ku dambaynaysaa eeg waxay ku dambaynaysaa wax sanka aad ka qabsatid oo aadan gadaal u eegi karin oo ka soo baxay ka noqonaysa adduunyaduna waxa weeyaan si kasto isku dartid ina camirtid oo shilin bashilin aad ku daliso ay cilcilisid waxay ku dambaynaysaa kharaab ayay ku dambaynaysaa in laga kaxeeyo ayadoo daarahaaga iyo baabuurtaada iyo gawaarigaagi dad kale ay dhaxlayaan in laga jiida ayay ku dambaynaysaa marka tusaale waxa u ah cunadii macaanka badnayd oo aad cuntay meesha ay ku dambaysay oo sanka aad ka qabsanaysay sidaas ay adduunyadu kharaab ugu dambaynaysaa waxa la isku dilaya maanta oo lagu tartamahay oo la kala boobahay oo la kala dhacahay oo aan loo aabayeelahayn xalaal iyo xaraam waa waxa noocaas ah oo aan qiimo ilaahay agtiisa ka lahayn رسولكنا صلى الله عليه وسلم سيدا سوكوها لحظة زاهد